السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa markii labaad oo hawada aynu ku kulanno waana 8 Abriil sanadka 2026 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago maalmihii u dambeeyay oo madaxweyne Trump hadallo la yaab leh oo caay iyo aflagaado isugu jira oo Iran uu ula jeedo ku soo qorayay barihiisa bulshada waxaa soo baxayay baaqa ku aadan in madaxweynaha uusan fiyoobeen isla markaana xilka laga qaado inay tahay arrintaasi xubno horey Kongareeska uga tirsanaa jiray iyo kuwa hadda ku jira oo dimuqraadiyiin ee Republican isugu jira ayaa waxay dhahayeen qodobka 25aad ee dastuurka waa in la adeegsadaa madaxweynahana xilka laga qaada haddaba sidee loo adeegsan karaa qodobka 25aad ee dastuurka madaxweynahana xilka looga qaadi karaa wadadee loo marayaa arrimahaas oo idil ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago suuragalna ma tahay madaxweynuhu ma ka jaalanji karayn karaa lacalla haddiiba arrintaasi ay dhacdo ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada maalmood u dambeeyay waxaan ognahay madaxweyne Trump waxa la isdahayay warninku ma waashay sidee wax u jiraan waa kii Iran yiri bastrin waa la tihiin isla markaana xitaa ayn soo qoray Praise be to Allah amaan ilaahay u sugnaato la yiri warninkii Trump ilaah ma soo hanuuniyo ma islaamay isla markaana haddana soo qoray shalay ka hor intii xabad joojinta aan la gaarin ilbaxnimo sanado soo jirtay ayaa baaba'aysa oo Iran dhan waa burburinaya arrimahaas oo dil markii uu soo qorayay ayaa xubno ka tirsan Kongareeska kuwa horey xitaa isaga taageerayaashiisa u ahaan jiray isla markaana markii dambe ay isku dhaceen iyo kuwa hadda ku jira Kongareeskuba oo dimuqraadi iyo Republican waxay soo jeedinayeen madaxweynaha inuusan maskax ahaan fiyoobeyn sidaas darteedna wadanka uusan hogaamin karin isla markaana ay tahay in xilka laga qaado haddaba markii shalay Trump uu soo qoray ilbaxnimada ayaan baabi'inaya xildhibaanadii hore ee Georgia laga soo dooran jiray Marjorie Taylor Greene oo Trump ay isku la dhaceen faylalkii sirta ahaa ee Epstein fileska markii uu ku tilmaamay qaa'inun wadan ay iscasishay isla markaana 5tii bishii January oo horaantii sanadka 2026 kursigeedii ay iska casishay ayaa qoraalkan soo qortay waliba hadda kursigeedii ay iska casishay waxaa shalay loo soo doortay xildhibaan Republican ah oo Trump uu taageeray waa doorashada waxaa ka qayb galay Clayton Fuller oo Trump uu taageeray oo Republican iyo Sean Harris oo dimuqraadi ah waliba ninka dimuqraadiga aad ayuu ugu soo dhawaaday doorashadan qaaska ee shalay ka dhacday degmada 14aad ee gobolka Georgia waa kursigii Marjorie Taylor Greene ay iska casishay marka Clayton Fuller oo Trump uu taageeray oo Republican ayaa kursiga ku guuleystay waxaana uu helay 55.8 halka sidoo kale ninka dimuqraadiga Sean Harris oo la tartamayayna uu helay 44.2 sidaas darteed hadda aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka 218 waxa aqlabiyada ku haya Republicanka dimuqraadiyiintuna 214 ayay leeyihiin haddaba Marjorie Taylor Greene markii Trump uu soo qoray ilbaxnimo qarniyo soo jirtay ayaan baabi'inaya oo Iran ayaan burburinaya oo ula jeeday qoraalkan ayaa barteeda X ay ku soo qortay waxa ay tiri qodobka 25aad waa in la adeegsadaa macnaha madaxweynaha waa in xilka laga qaada maxay tiri hal bam ayaa oo laguma soo tuurinay tiri Mareykanka macnaha Iran bam ma aysan ku soo tuurin oo xitaa dhibaato uma geysan ayay tiri wadanka Iran marka ma dili karna ayay tiri ilbaxnimo dhan ma baabi'in karno arrintan waa shaydaanimo waana waali ayay ku soo qortay barteeda X sidoo kale ninkan la yiraahdo senatorka John Cornyn oo Texas laga soo doorto walibana hadda tartan galaya dhamaadka sanadka November oo isaga iyo ninka xeraalyaha guud ee gobolka Texas Ken Paxton ay tartamayaan maadaama doorasho ku celisa loo qaban doono oo doorashadii hore ee bishii hore dhacday labadooda midkood uusan ku soo bixin Trumpna midkood uusan wali taageerin hadda waxa laga yaabaa hadalkan uu shalay sheegay John Cornyn in Trump uu taageero ninka la tartamayo ninkan waa rugcada 20 sano ka badan sanadka ku soo jiray ninka la tartamayana waa nin ku cusub Kongareeska oo xeraalyaha guud gobolka Texas Ken Paxton marka hadalkan uu shalay Trump ka sheegay John Cornyn waxa laga yaabaa Trump maadaama uu yiri dhawaan labadooda ayaan mid taageeri doona midka aan taageera ma ahna midka kalena waa inuu isaga haraa tartanka ayaa hadalkan ayuu sababsan doona ayaa isleeyahay John Cornyn wuxuu yiri ma doonayo in la qarxiyo in waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ee shacabka Iran waxa aan doonayo oo kaliya waxa ay tahay dagaalka Iran in dadka Iraniyiinta ah inaan wax dhibaato ah loo geysan maxaa yeelay waxaan doonaynaa inaan xurayno
dadka Iiraan hadalkaasi hadal xun maahan laakiin Trump qofka ka soo horjeesta oo waxa uu sheego ka soo horjeesta waxa ay tahay dadka uu ugu necab yahay adduunka marka John Kerry maadaama doorasho uu kelayo Trumpna labada nin ee tartamaysa John Cornyn iyo Ken Paxton midkood uusan taageerin waxaa laga yaabaa hadalkan inuu sababsado John Cornyn oo Trump uu yiraahdo bariba xitaa Ken Paxton ayaan taageeray Trumpna inta badan musharaxa uu taageero 90% waa la doortaa marka arintaasna waxa laga yaabaa hadalkaas inuu dhibsado marka qodobkan u jeedo waxa uu yahay qodobka 25aad sidee loo adeegsanaya madaxweynahana xilka looga qaadaya meesha aan u socdo waa meeshaas qodobka 25aad horta gaar ahaan qaybtiisa afraad waxa ay tahay in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay isku raacaan kongareskana ay waraaq u qoraan isla markaana ay ku dhawaaqaan waliba iyadoo qoraal ah in madaxweynuhu uusan awoodin in waajibaadkiisa uu ka soo baxo isla markaana kongaresku isla markiiba waxa uu xilka ku wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenka marka inta badan golihiisa wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenku waa inay waraaq u qoraan kongareska laakiin sidaan ognahay Trump dadka uu soo doortay waa wada yesman arrintaasi ma dhacaysa waa maya wasiiradiisa qof dhihi kara xitaa madaxweyne waxaani waa qalad ee saana saxa ma jiro mid kastaba madaxweynuhu waxa uu yiraahdo waa inuu ku raaca madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kalena golihiisa wasiirada inkastoo madaxweynuhu arrintaasi uu contest ka samayn karo isla markaana uu ka dacwoon karo isla markaana kongareska ayaa arrintaasi markaasi kadib go'aan ka gaaraya haddii aan sii faahfaahiyo marka qodobka 25aad ee dastuurka farqadiisa afraad maxay tahay sideesa loo laali karaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale waa inuu hogaamiyaa action ama tilaabo oo ay taageeraan inta badan golaha wasiirada amaba guddi kale oo kongaresku uu sameeyey processku marka muxuu yahay waa written declaration qoraal cadeynaya in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay qoraalkaasi u soo qoraan ninka madaxda ka ah aqalka sanadka iyo waliba afayeenka aqalka sanadka waa labada nin ee kongareska labadiisa aqal kala hogaamisa haddana waa republican marka horta ma dhici doonto laakiin tilaabooyinka ay suuragal tahay in la maro ayaan idin sheegaya sidoo kale markaas kadib awoodda waxaa si degdeg ah loogu wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaana uu noqonayaa kusimaha madaxweynaha markaas kadib madaxweynuhu haddii uu ka challenge gareeyo arrintaasi uu yiraahdo suuragal ma ahan waa fayoobahay xilkaygana waan ka soo bixi karaa waxa ay tahay in madaxweynuhu uu isagana cabashadiisa uu u diro kongareska markaas kadib kongareska ayaa go'aan ka gaaraya haddii madaxweynuhu arrintan cabasho uu ka keeno kongaresku 48 saac gudahood waa inuu kulmaa 21 maalmood gudahoodna waa inuu go'aan ku gaara marka 3 meelood loo dhigo 2 meelood oo kamid ah labada aqal sanadka iyo aqalka wakiilada waa in ay madaxweyne ku-xigeenka ay yiraahdaan xilka ayaad sii haynaysaa si ku meel gaara ama sidoo kalena madaxweynaha ayaa awoodiisii dib loogu soo celinaya marka kongareska go'aanka looga baahan yahay waxay tahay madaxweynuhu hadduu arrintaasi cabasho ka keeno kongaresku 48 saac gudahood waa inuu kulmaa 21 maalmood gudahoodna oo go'aan ku soo saara marka 3 qaybood loo dhigo labada aqal ee kongareska sanadka iyo aqalka wakiiladana waa in laba kamid ah ay isku raacaan madaxweynuhu in madaxweyne ku-xigeenku inuu xilkiisa sii hayo si ku meel gaaro inuu xilka u sii hayo haddii kalena madaxweynaha haddii waajibka qaranka ka saaran uu gudan karo xilkiisa ka soo bixi kara in awoodiisii dib loogu soo celiyo marka qodobka 25aad farqadiisa saddexaad iyo afraad waa ay kala duwan tahay farqada afraad waxa ay tahay involuntary mutadawacnimo ma ahan halka sidoo kalena section 3ga amaba qaybta saddexaad ee qodobka 25aad ee dastuurka farqada saddexaad ee madaxweynaha ay u ogolaanayso si mutadawacnimaha inuu xilka uu ku meel gaar ah ugu wareejin karo madaxweyne ku-xigeenka kaba soo qaad madaxweynuhu qalliin ayuu galaya waa la suuxinaya madaxweynuhu wuu miir daboolmaya Soomahan qofka marka la suuxiyo ma oga inuu nool yahay inuu dhintay isagu isma oga mararka qaar inuu ku tago ayaaba laga yaabaa markaasi oo kale waxa la isticmaalayaa section 3 oo si mutadawacnimaha ayaa madaxweynuhu si ku meel gaar ah waraaqan ku saxiixo waxa uu leeyahay xilka madaxweynaha waxaa sii haynaya intaan qalliinka ama suuxdinta ku jira madaxweyne ku-xigeenka laakiin qodobka waxa uu afraad wuxuu yahay involuntary ma ahan macnaheedu madaxweyne ku-xigeenka haddii xilka loo dhiibo macnaheedu waxay tahay madaxweynuhu waajibkiisa kama soo bixi karo
marka sharcigan waxaa la sameeyey 1967 si loo xaqiijiyo awoodda fulinta ee madaxweynuhu haddii uu noqdo mid aan awoodin inuu xilkiisa ka soo baxo islamarkaana aan waddanka maamuli karin in ku-xigeenkiisa xilka lagu wareejiyo qodobka 25aad ee dastuurkana la isticmaalo. weli sharcigan horey ma loo isticmaalay? maya. qodobka 4aad horey weli looma isticmaalin oo si aan mutadawacnimo ahayn in madaxweynaha xilka looga qaado weli horey looma isticmaalin, inkastoo dhowr jeer laga wada hadlay. Trump 4 sano hore arrintan waa lasoo hadal qaaday, hadda Biden intuu xilka hayay waa lasoo hadal qaaday, laakiin sharcigan weli lama isticmaalin. marka anigu ma isleeyahay Trump golihiisa wasiiradu xilka waa ay ka qaadayaan. golaha wasiiradu waa 15, marka 8 ka mid ah waa majority-ga. marka 8 ka mid ah waa inay isku raacaan madaxweyne ku-xigeenkana uu ka ogolaado islamarkaana ay saxiixaan, markaasi kadibna ay Congress-ka ay u gudbiyaan. marka waa inuu madaxweynuhu ogolaado. xitaa Ilhaan Cumar waa tan shalay soo qortay, waxay tiri Donald Trump waa in xafiiska laga qaadaa maxaa yeelay waxa uu ku hanjabayaa inuu dambiye dagaal samaynayo, xasuuqna samaynayo. waa ka hor intii shalay xabad joojinta aan la gaarin. marka waxay ugu baaqday afhayeenka aqalka wakiilada inuu Congress-ka hadda fasaxu ku maqan yahay uu dib isugu yeero islamarkaana la laalo qodobka 25aad ee dastuurka, madaxweynahana xilka qaadis lagu sameeyo. maxaa yeelay waxay tiri Congress-ku waa inuu isticmaalaa awoodaha dagaalka islamarkaana qaraarkaasi uu soo saaraa, Trumpna uu joojiyaa. Ilhaan Cumar ayaa soo qortay. madaxweyne Trump waxaan ognahay horey 2 jeer ayaa loo soo golo joojiyey. mar waa intii uu xilka hayay 4 sano hore 2019 waxaa lagu eedeynayay inuu awoodiisa ku xadgudbay kadib markii la sheegay in waddanka Ukraine uu soo farageliyey doorashooyinkii sanadkii 2020 ee Ukraine inuu farageliyey islamarkaana baa arrintaasi Congress-ku aqalka sanadka maadaama aqlabiyadda xilligaas Republicanku ay hayeen xilka lagama qaadin. qodobka labaadna wuxuu ahaa obstruction of Congress, inuu Congress-ka ka hor yimid islamarkaana sidoo kale madaxweynuhu uu daboolay cadeymo. sidaas darteed ayaa lagu soo gala joojiyey. tan kalena waxay ahayd January sanadkii 2021 markii uu xilka ka degay kadib waxaana lagu eedeeyey inuu kacdoon sameeyey markii taageerayaashiisu ay weerareen Congress-ka January 6 sanadkii 2021. marka labada baaritaanba madaxweynaha wax dambiya waa lagu waayay, xilkana lagama qaadin. tii koobaad 5 February 2020 ayaa sanadku ay yiraahdeen madaxweynuhu dambi ma lahan. tii labaadna February 13 sanadkii 2021 ayaa dambi lagu waayay. marka labadaasi jeer oo hore madaxweynaha waa la soo golo joojiyey. marka xabad joojintii madaxweyne Trump saaka bartiisa Truth Social-ka qoraallo kala duwan ayuu ku soo qoray oo uu leeyahay waxa ay Mareykanku si wada jir ugala shaqeynayaan Iran sidii xabad joojintan ay u dhaqangeli lahayd. marinka Hormuzna maraakiibtii u horeysay ayaa bilowday inay soo marto markii Iran ay ogolaatay. waxa la leeyahay ilaa 2 markab ayaa soo maray, laakiin Trump waxa uu leeyahay goobihii nuclear-ka Iran bishii 6 ee sanadkii hore aan duqeynay uranium-ka weli ku jira, waxa aan doonaynaa inaan inagu soo qaadano. arrintaasi Iran ma aqbali doontaa? kulley 15 qodob oo Mareykanku uu gudbiye ayay ku jiraan. Iran waa tii dhahaysay 10 qodob ee naloo ogolaaday waxaa ku jira in uranium-keena aan sii bacrimin karno. marka labadaasi qodob oo maamulka Trumpna uu doonayo uranium-kii la bacrimiyey inuu ka soo qaato Iran oo hadda burburka hoostiisa ka hooseeya uu leeyahay Iranna waa nay ogolaatay. Iranna ay leedahay inaguna waxa aan doonaynaa in aan uranium-keena sii bacrimnimo. arrintaasi waan arki doonaa halka ay ku dambeyso. Trump sidoo kale waxa uu hanjabayaa wadamada wuxuu yiri hub military ka iibiya Iran si degdeg ah ayaan canshuur 50% aan ugu soo rogaynaa. wax excuse-na ma jiraan marmarsiya. marka Trump waxa uu soo qoray labadaasi tweet ayuu soo qoray. dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane ayaa shir jaraa'id ka qabtay. wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu guul ka gaaray dagaalkii 39 maalmood socday. waxa uu yiri Iran awoodeedii dhan waan baabi'inay, weliba anagoo 10% awoodda ciidamadeena aan isticmaalayno. waxa uu sidoo kale sheegay Iran mar dambe in aysan gantaalo samaysan karin oo warshadahoodii ay baabi'iyeen, walow Iran ay leedahay 50% gantaaladeena iyo daroonkeena weli dhulka hoostiisa ayuu noogu jiraa. sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay Iran xabad joojintan iyada ayaa naga barisa ayuu leeyahay, inaguna waan ognahay. kulley Iran waan ognahay dabaaldega shalay ka socday markii xabad joojintan 2 toddobaad la gaaray. marka waxa uu leeyahay madaxweyne Trump waxa uu sameeyay wax madaxweynayaashii ka horeeyay aysan samaynin. maxaa yeelay waxa uu dilay Qasem Soleimani, hubkoodii nuclear-ka ayuu burburiyey, haddana sidoo kale gantaaladoodii difaacoodii cirka iyo ciidamadoodii badda ayuu baabi'iyey. marka waxa uu yiri Iran mar dambe looma ogolaan doono inay hub nuclear
ay samaysato wuxuu yidhi Maraykanka iyo Israa'iil oo wada socda dhammaanba guulihii howlgalkan Epic Fury ay ka lahaayeen waa ay ka gaareen wuxuu yidhi regime change-na waan samaynay oo dowladdii hore madaxdii inta badan waa dilnay kuwa cusub ee hadda joogana waxa ay garteen in arrintan ay laga maarmaan tahay waxayna qaateen xabad joojintan marka isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi